بسم الله الرحمن الرحيم كسو دوادا تيفيغا عالبيغا أدل تيفي طبعا أدل تيفي waxaad gar walba ka daawataan barnaamijyo wax ku oola oo aan ugu talagalnay in aynu ku haqabtirno bulshada ku dhaqan geeska Afrika gaar ahaan deegaanada Adal barnaamijka aan caawa doonayno inaan halkaan ku falanqeyna waxa magaciisa la yiraahdaa dhibanayaasha boqoran ama dhibanaha boqoran sida aad ka aragtaan dhibanaha boqoran ama magac martabeedku waxa uu ka taagan yahay waa ruux dulman oo misna boqoran muxuu yahay ruuxa dulman ee boqoran ayaa muhiimadu ay tahay inaan lafteeda aynu in yar tafaasiil ka bixino dabcan qof kasta oo bilaadan ah oo dunidan ku nool waxa uu leeyahay xaq iyo xuquuq oo uu ku noolaado oo uu ku hadli karayo kuna cabiri karayo afkaartiisa iyo aragtiisa kala duwan waxa jirta mararka qaarkood ruuxa dulmanaha ah isagoo oo lagu diganayo oo dhibaato iyo hagardaamooyin badan lagu hayo haddana in goor walba digasho loola yimaado oo la yiraahdo waxa tahay ruuxa kaliya ee jira ama waxa tahay ruuxa wax hogaaminaya dabcan hadaynu in yar tafaasiil kala ka sii bixino deegaanada reer Adal waxa soo maray dhibaatooyin badan iyo dihaal isdaba yaalay in badan waxaynu ka soo qaadan karaynaa kadib markii ay shiiqday cadceedii ama qarankii Soomaaliyeed oo jabay dhibaatooyinkii ka dhacay gobolada Soomaaliya qaar ahaan gobolka Awdal saad la socotaan gobolka Awdal laga soo bilaabo 1990kii wuxuu la daala dhacayay cadaalad darrooyin badan oo uu ka tirsanayay waxyaabo uu asaga gacantiisa ku abuuray ama nidaam ama qaab uu asaga iyag leelay ama ay dadkiisuba u hagar baxeen haddaba waxaanu leenahay inkastoo barnaamijkeenu uu intiisa badan aanu doonayno inaan arrinta lafteeda ku falanqeyno waxaa maanta barnaamijka martiigu ah aqoon-yahan Axmed Qalinle oo ku magac dheer Axmed Jango kana mid ah dhalinyaradii ka baxday dugsiga nerska ee magaalada Hargeysa waqtiga oo aanu insha Allah dib ka sheegi doono oo asagana inaga warrami doono aqoon-yahan Axmed waxa uu ku hadlaa luqadaha Soomaaliga, Carabiga, Ingiriisiga iyo Urduga iyo Hinduga shanta luqadood ayuu ku hadlaa marka hore waxaan doonayaa inaan ku soo dhaweeyo madasha mudane Axmed ku soo dhawo marka hore barnaamijka dhibanayaasha boqoran السلام عليكم ورحمة الله وبركاته waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa marka hore TV-ga Adal fursadan uu siiyay maanta qiimaha iyo qaayaha leh waan ku soo dhawahay asalaam waayahay intaa kadib waxaynu halkii kasii ambaqaadi doonaa qaybaha inoo harsan ee barnaamijkeena caawa mudane Axmed waxaan doonayaa maadaama aad dhawaan ka timid dhulkii hooyo inaad warbixin kooban naga siiso degalada ummadda Gadabursi ay degan tahay adigoo mahadsan waad mahadsan tahay mar labaad Faisal anigu saad u sheegtay dhawaan waxaan ka yimiday gobolka Awdal oo muddadii ugu dheereyd intii aan khaliijkan soo galay aan joogay oo ahayd muddo sanad iyo 3 bilood ayaan ku maqnaa dhibaatooyin aad iyo aad u fara badan ayaa ka taagan gobolka Awdal ha ahaato nabadeedii oo aad iyo aad u sii hooseysa oo aad iyo aad u sii dhacaysa ha ahaato xag moogtahay dhalinyaro aad u kacsan iyaga laftigoodu oo jecel moogtahay inay moogtahay horumar iyo wax sameeyaan laakiin dhibaatooyinkooda kulli Faisal aad iyo aad bay u badan tahay kuma soo koobi karno halkan waayahay haddaynu u sii gudagalno qaybaha barnaamijka intiisa ugu xoog badan waxaanu jeclahay inaan bal iminka aan kaa weydiiyo su-aal ku salaysan adigu noloshaada iyo nafsadaada dabcan mudane Axmed waxaanu ogeyn inaad ahayd nin xag jir ah oo aaminsan nidaamka Somaliland dabcan waxaad ka tirsaneed ururkii udub ama xisbigii udub ee uu hogaaminayay mudane Daahir Riyaal Kaahin waxaad ahayd nin inta badan u ololeeyo jiritaanka ama inay wax noqdaan ummadda ku dhaqan Somaliland isbedel ayaa ka muuqda dabcan saad imika soo noqotay isbedelada noocaasa maxay yihiin ayaanu maaragtay dad badan isweydiinayaan TV-ga Adalna waxa uu doonayaa inuu fursad ku siiyo inaad halkan ku baahiso ama aad halkan ku soo bandhigto waxyaabaha noloshaadii iyo aragtidaadii iyo fakarkaagii bedelay marka adigoo ku soo dhow mar kale TV-ga Adal aad baad u mahadsan tahay mar labaad Faisal waxaan ahaa sida aad sheegtay anigu waxaan ahaa nin Somaliland
يعني وليبا سيريس somalilander ahaa waxaad si moodaa hadda inay hoos iga dhacday somalilanderkii sababtoo ah in fact waqooyi galbeed marka laga bilaabo 1984 oon khaliija soo galay ilaa iyo hadda markii aan maran yani waxaan joogi jiray 2 bilood laakiin hadda waxaan soo arkay nolosha dhabta ah ee ay ku taagan tahay Somaliland iyo dhibaatooyinka ka taagan Allahumma salli ala Muhammad ka taagan moogtay gobolka Awdal iyo Salel aniga markii hore Somaliland dadka waxaan u ahaa waxa weeye de waxaan moodayay wax la qaybsado waayo dad ahdi wada galay baan nahay dad meel wada joogay baan nahay marka dad walaala oo wada dhashayna waan nahay in fact anu Hargeysa ku soo koray oo ku soo barbaaray waxaan u haystay in wax la wada wadaago laakiin hadda waxaan soo arkay iyada oo moogtay qayb kaliya wixii dalka soo gala ay cunayso ama qayb kaliya ay qaybsanayso waxaan soo arkay dad Soomaaliyeed oo adal iyo ay u badan yihiin Awdal iyo Salel oo an hataa waxay cunaan iska daayay waxay gashadaan iska daayay waxay cunaan aan haysan marka kulli isbedel badan ayaa igu soo dhacay waayahay mudane Axmed hadalada waxaa ka mid ah inaad ka dhawaajisay sababaha keenay isbedelka ama aragtidaada bedelay inay tahay nidaamkii meesha ka jiray oo dad gooniya ku kooban waxaanu la soconaa dabcan dhulka loo yaqaano Somaliland ama deegaanada gobolada waqooyi kadib 1990kii isbedelo weyn ayaa soo gaaray ama ka dhacay waxaanu la soconaa taariikhiyan hadaynu dib in yar u iftiimino deegaanka loo yaqaano meesha la yiraahdo Harshin shir ayaa ka dhacay shirka meesha ka dhacay waxa uu ku koobnaa beesha SNM shirkaasi muhiimadiisu waxay ahayd qaabka loo maareyn doono dhismaha dawladeed ee SNM hormuudka ka tahay ama ay ka noqon doonto halka waxa ka soo baxay qodobo aad u muhiim ah qodobadaasi inta badan dib ayaanu ka sheegi doonaa haddii Ilaahay yiraahdo kadib shir kale ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka loo yaqaan Balugubadle waxa lagu heshiiyay dhammaan beelaha ku abtirsada beesha isaa ku abtirsada in ay saami qaybsi cad meeshaasi ay ku wadaagaan saami qaybsigaas oo ahaa in beel waliba halgankaasi ay ku jirtay ama ayaga ay sheeganayaan inay u soo halgameen in ay qaybteeda laga siiyo halkaana waxa lagu sameeyay axdigii labaad markii laga yimaado kii Itoobiya gudaheeda ka dhacay axdiga waxa uu sheegayaa wax kasta oo la dhiso beesha isaaq inay iyadu hormuud ka tahay kadib waxa loo yimid shirkii ka dhacay Burco kadib burburkii qarankii Soomaaliyeed shirkaasi waxa ka qayb galay oo taariikhda ku xusan shakhsiyaad reer Awdala ama salaadiin maanta ah ama siyaasiyiin kamid ah shakhsiyaad iyaguna ka soo jeedo deegaanada qaatuma ka soo jeeda dabcan dadku markaa waxay ahaayeen dhulka waxa ka dhacay dhibaatooyin badan mooryaanta iyo dhuljiifka iyo daydayga aad ayuu u badnaa waxa aad loo tixgelinaya ama aad loo raadinayay sidii nabad lagu heli lahaa dadku markaa uma aysan bislayn inay dhistaan wax dawlad ama heykal dawlad leh laakiin dadku waxay doonayeen oo ay aad iyo aad mar walba u jeclaan u soo dhaweynayeen inay nabad helaan shirka Burco waxa lagu tilmaamaa beelaha Gadabursi inay qayb ka ahaayeen dadkii wax ka wada saxiixday in Somaliland waxa loogu yeero ay ka baxday Soomaaliya inteeda kale dabcan waa taariikh iyadan oo astan oo aan dib ka sheegi doono waxa yimid dagaalo ba'an oo lagu riiqmay oo dhaxmaray beelaha SNM gobolka Awdal waxa lagu sameeyay ama markaa diyaar ku ahaaba guurti 22 oday ah oo imika ay dhowr ka sii nool yihiin guurtidaasi waxa ay gurmad ba'an u fidiyeen beelihii SNM ee ku dagaalamayay awoodda markaa jirtay waxa dhacday in badan kadib iyadoo taariikhdu ay maalinba isa soo gureysay in kadib uu shir Boorama ka dhacay horaantii 1993kii shirkaasi oo aanu ku tilmaami karayno inuu ahaa shirkii halkii ay sarta ka qurantay shirkaasi waxa ka soo bilowda hanjabkii ama qaranjabkii ama maanguurkii ummadda Gadabursi oo ku astan jabkii 12aad ee ummadda Gadabursi soo gaaray shirkaasi dadku waxay ku tilmaamaan ummadda Gadabursi inay saami ku lahaayeen balse waxa cad inay saami sugayaal ka ahaayeen hadaynu iftiimino saamiga iyo saami suguhu waa kala labo saami qaybsi dawladihii awoodda lahaa markii Berlin lagu shireeyay 1884kii waxa jiray dawlado qaybsaday Africa, Asia iyo Koonfurta America iyo dawlado saami suga ka aha
saamisuga haddana soo qaadan waxaa ka mid ahaa dowladda Ethiopia oo markaa uu hogaaminayay boqor Menelik oo doonayay in dhulka Soomaaliyeed iyo dhulka koonfurta Ethiopia iyo dhulka Eritrea in lagu wareejiyo dabcan reer awdal raggii markaa joogay ee siyaasiyiinta u ahaa waxaa ka mid ahaa rag caana oo maanta intooda badan mootan waxaa ka mid ahaa General Talon baa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa siyaasiga weynaaye Xasharo waxaa ka mid ahaa Jaamac Rabiilagood waxaa ka mid ahaa rag badan oo noocaas ah dabcan raggaasi waa loo diiday inay ka qayb galaan hanaankii lagu yagleelayay waxa maanta Soomaaliland loogu yeero waxaana lagu soo dhaweeyay halka oo aad uga qayb qaatay oday dhaqameed halkii siyaasiyiinta la doonayay wax ka qayb qaataan dib haddaan u riixo halkaan waxaa ka soo bilowday oo mar labaad afkay ku adkaynaya dhibaatadii ugu baaxadda weyneed ee Gadabursi soo gaadho shirkaasi kadib isbedel ayaa ku yimid siyaasadii Gadabursi isbedelkaasi oo dihiday ama dhalay xaaladda maanta taagan ee foosha xun leh ayaan doonaynaa in ayadana wax ka weydiino anoo markaa su'aal ahaan ku weydiinayo shirkaasi wixii ka dambeeyay dabcan wada joogtay dhulka waayo badan oo soo joogtay oo wax badan kala socotay siyaasad ahaan iyo aragti ahaan yaa jiray maxaad nooga sheegi karaysaa halka ay sartaa ka qoruntay ee laga sixi karayay markaa ayada maxaad nooga sheegi karaysaa aad baad mahadsantahay Faisal history dheer sheeko dheer ayaa adeeg gashay waa history fiican waxaad sheegayso dhan way wada jiraan sartu halkay ka qoruntay waxa weeye nimankan Samaroon ama gobolka Awdal iyo Salal Gadaagada Buursi waa niman ixtiraam badan Harbooro markii lagu hadlayay يعني وحوي وحيسكر دجان صده وده سام قيب سجلفت جيسة وحي ضد وحي سينين مرتدى أوجوكتا أي وحول با أي الهاين سود وين سينين لكن صرت وحي كقرنت وحوي وضيدي مالنتها فدي أو قيب سر نبأ أن لجلين موقتها قرية كلك سورجيد oo aan oran karno ay markaad weydiisay tiraahdo barigaas maxaa dhacay aad u samee aad u dooran weydeen wax u raadin weydeen waxay ku oranayaan iyagu anagu sodoh baan nahay sodohina waa tii xishoota laakiin sartu waxay ka qorantay maalintaas weeyi in waxooda ay qaybsadaan oo moogta qayri lagu kala goosto absolutely ayay ahayd waayahay haddii aanu halkaa kasii wadno waxaa tiri odayaashu waxay ku doodayaan maanta inay ahaayeen sodo dabcan arintaasi lafteeda meelan gaf ku noqonin shacabka reer Awdal waayo sodohdu waa ruux marwa oo la qabo oo martabad iyo maamuus ku dhaxlan bulshada dhexdeeda marka siyaasiyiintii iyo odayaashii iyo dhalinyaradii iyo haweenkii ma la oran karayaa waa arin gaf ku ah in ay sheegtaan inay yihiin sodo maanan taasi ahayn arin gaf ku ah mar labaad aan ku soo celinayo ummadda Gadabursi ee qiimaha iyo sharafta leh ee deegaanka degan runta Faisal waxa weeye ceeb bay ku tahay oo waxa weeye odayaasha horta mushkiladda ugu weyn ee haysata Awdal iyo Salal waxa ugu wacan waa odayaashii berigii horana iyaga unba moogtay talin jiray iyaga unba bixin jiray imaga Djibouti marka laga sheekeeyo de waxa weeye dhul ay lahayd waxa weeye Samaroon oo Gadabursi degana iyagana hadda u hooseeya maxay ahayd halkan laftigeeda waxa weeye odayaasha ayaan anigu xilka ceebta saaraa oo aan moogta u jajabnayn dadkooda oo ninna ku oran maayo waxaan ayaan u dhigayaa ubadkayga wali arkimaysid oday Samaroon oo leh ayihii inankayga ka fikiraya nin walba wuxuu ka fikiraa naftiisa iyo waqti xaadir waad ogtahay inta odayaale soo maray wax alla waxay u faa'iideeyeen caruurtoodii ka dambeysay in fact ma jiro waana dhaliil aan u soo jeedinayno especially odayaasha ayada naga waaweyn dabcan haddaan dib ugu soo noqdo su-aashii iminka aan ku weydiiyey qayb ka mid ah waxaad tiri odayaasha Gadabursi guud ahaan waxay ka sameyn yihiin inaysan ka fakerin aayaha ama mustaqbalka caruurtooda taasi lafteeda maanan la oran karaynin eedaha aynu u jeedinayna beelaha darafyada inaga xiga ee galbeed iyo bari inaga xiga wax eeda kuma lahan mar haddii odayaashii inaga aan talada u dhiibanay ee anaga doonayay in ay hawshayadii iyo mustaqbalkayagii iyo aayahayay ka fakeraan haddiiba iyaga ay caynkaa tahay oo nolol maalmeedkooda ama sandareerteer ay ku badasheen maan la oran karin eedaha aynu u soo jeedinayna beelaha aynu jaarka nahay wax eed ay ku leeyihiin arrintaasi ma jirto maanta hal la oran karin
waa la odhan karaa, lamana odhan karo Faysal, sababtoo ah odayadu waa odayaal moogtahay iyagu dantooda ka fikiraya, laakiin hadda waxaa jira dhalinyaro dhiiran oo firfircoon oo usoo baxday maxay ahayd gobolka Awdal, oo de kulley waxaan u malaynaya inaanay noqonaynin sidii berigii hore ay moogtahay odayga dhaameelka loo lulo uu soconayay, laakiin hadda waxaa jira dhalinyaro aad iyo aad u firfircoon, dhalinyaro soo baxaysa oo moogtahay futurekooda ka fikiraysa. marka waxaan kuwaasi ayaa la doodi doona maxay ahayd qabiilooyinka kale iyo dadka kale. weli waxaynu ku guda jirnaa qaybihii barnaamijkeena aynu ugu talagalnay inaynu bulshada uga qabtirno hagardaamooyinkii ama guuldarooyinka siyaasadeed ee soo wajahay bulshada Gadabursi. bartamaha waxaan kaga jirnaa barnaamijkii dhibanayaasha boqoran ama dhibanaha boqoran aynu ku wareegsanaynay aqoon-yahan Axmed Qalinle oo ku magac dheer Axmed Jango. mudane Axmed, waxaan kaloo doonay inaan ku weydiiyo oo aan doonaya inaan bulshada u iftiimino saami qaybsiga waxa la yiraahdo, maadaama aynu soo sheegnay 3 shir beesha SNM ay saami qaybsi soo maray, saami qaybsigaas oo iyaga ku koobnaa shirkii Boorama ka dhacay. dabcan waanu ka soo hadalnay, laakiin waxaa tiri maadaama ay sodoh dadkii markaa wax matalayay ama ummadda hormuudka u ahaa ay ku ekaateen inay sodoh yihiin, waxaa la weydiiyey qayb ka mid ah maxaad arrintaasi aad wax uga qaban weydeen. dabcan waxay sheegeen in ay shirkii Boorama ka dhacay uu ahaa shir lagu heshiisiinayay dagaalkii ka dhaxeeyay beelihii dagaalku ka dhaxeeyay SNM, balse uusan ahayn shir loogu talagalay in wax la yiraahdo Somaliland ama heykal dawladeed loogu dhiso. dabcan way soo jiitatay arrintu, hadiiba markaa balagubadle arrintii ka dhacday ee ahayd beelaha SNM inay iyagu xaq u leeyihiin wax walba oo Somaliland ka yimaada, haddii iyaga taasi ay la yimaadeen Boorama iyagoo wata, maan la oran karaynin shacabkii markaa Awdal oo ka tirsanaa dawladii dhexe ee Soomaaliya oo aanan lahayn wax qorshe ah oo ayaga markaa u diyaarsan aysan jirin, iyo nimankii SNM ee markaa socday qorshihii ama wixii ay wateen, halkaa waxaa ka soo bixi karaya ismaandhaaf ama isfahan la-aan, oo qolona ay doonaysay inay dawlad ama hoggaan ay qabsato, qolona ay doonaysay inay heshiisiiso dad isdilay. halkaa maan la oran karaynin ismaandhaaf baa ku jira u baahan in dib loo turxaan bixiyo. way jirtaa Faysal, waa runtaa Faysal, way jirtaa turxaan bixin badan bay halkaasina u baahan tahay. odayaasha iyo dadka moogtahay hataa labada qolo markii ay dadka wada shirayeen aqoon-yahanka laftigooda markaa meesha ka hadlayay dee qaar siyaasad bay u haayeen oo qabiilooyinka kale siyaasiyiin baa ku jirtay, laakiin meeshan Gadabursi waxaa joogay odayaal aan fahmaynin ujeedada laga leeyahay kasii dambaysa Somaliland dhisida. in fact umanana haysan moogtahay inay Somaliland dhismayso iyo waxyaabo kale uma haysan. halkaa laftigeeda waxay u baahan tahay turxaan badan oo waxa bixin doona insha Allah dhalinyarada Samaroon ee u kortay u soo baxday maxay ahayd guulaha Awdal iyo Salel. waayahay haddaan halkaa kaga sii gudubno, dabcan inagoo barnaamijkeena uu noqon doono mid taxano inoo noqon doono oo aan rajeynayno inaan dad badan oo way arag ah ama aqoon u leh waxa meesha ka taagan aynu ku wareysano, waynu kasii gudbaynaa taasi. dabcan waxaan imika jira arrimo isbedel ah ayaa ka jira gobolada Awdal, Salel iyo Gabiley. dabcan waxaa jira in ummadda Gadabursi ay degan tahay 15 degmo marka laga hadlayo geeska Afrika, Djibouti iyo Ethiopia iyo Soomaaliya. waxaa jirta kelmad tisqaaday oo inta badan lagu soo celiyay oo ah reer Boorama, qof reer Djibouti oo lagu leeyahay reer Boorama, qof reer Ethiopia oo lagu leeyahay reer Boorama, qof ka soo jeeda Qulujeed iyo Boon iyo Garbadadar iyo lagu haye iyo Saylac iyo meesha leeyahay Gabiley iyo Boolxaar iyo Dila iyo Magaal Qalooc iyo Goroyo Cawl oo aad ka timid lafteeda, intaaba lagu tilmaamay inay reer Boorama yihiin. kelmadaasi meelan ahayn kelmad يعني dadka lagu barabixinayo ama la doonayo in lagu soo koobo magaalo qura umada Gadabursi. Faysal way tahay waa meel ka dhac weyn weeyaan. anigu baasaboorkayga hadda Ingiriiska waxa igu qoran in fact Goroyo Cawl baa igu qoran inaan ka imiday magaalada Goroyo Cawl. sababta ay Gadabursiga loo haysto inay Boorama kaliya ku nool yihiin waxa weeye nin quljeed ku dhashay baad arkaysaa markaas aad warqad ka timid Boorama uu ku leeyahay halkeed ku dhalatay Boorama haddii nin waliba sheeganayo
meesha uu ka yimid iyo meesha uu ku dhashay dee qaar baa moogtahay jigjiga ku dhashay ardisoobo ku dhashay maxay ahayd jabuuti laakiin waxa weeye garasho anu gadabursi baan ahay markaan tia boramaa ka yimid de anu gadabursi baan ahay un baad ujeedaa laakiin waxa ka wanaagsan nin walba tuuladiisa inuu sheegto anigu infact waan ku faanaa waxaan kusoo barbaaray goraycawl nin reer goraycawleedana waanahay aad iyo aadna waan I'm proudna waan ku ahay markaa waxaan jecelahay weliba dhalinyarada soo koraysa inay sheegato qof walba meesha ku dhashay iyo meeshuu ka yimid waayahay taa waxaanu kaga sii gudbi doonaa insha allah waqtiga oo aanu gabagaba inoo sii ah dabcan waxaa jira kacdoon baa ka jira deegaanada reer adal kacdoonkaasi oo hogaan kugu hayo suldaan abubakar cilmi wabar iyo maayarkii hore ee magaalada boorama mudane cabdi shida bile dabcan waxaa kaloo ka mid ah yani hogaanka sare rag badan oo muhiima oo aynan halkan iminka magacyadooda aanu ka sheegaynin kacdoonkaasi waxa uu ka yimid saluug iyo salow ka dhacay dhulka deegaanada reer adal kacdoonkaasi waa mid dadka intooda badan tusinayo inuu xaq yahay sababtoo ah snm waxa ay ka baxday oo ay sheegtay inay ka baxday nidaam cadaalad darro oo ku sameeyey dowladii dhexe ee Soomaaliya iyagoo waliba qaybaha ugu muhiimsan ka yani ama xidalka ugu muhiimsan ka haya dowladii dhexe ee Soomaaliya maanta ninka aaminsan suldaan wabar iyo cabdi shida bile arinta ay ka kaceen ninka aaminsan inuu qalad ay tahay dadka nooca ah oo adigu aad garanayso maxaad u sheegi karaysaa dabcan anagoo ka hadlayno marna waxaanu ka hadlaynaa dal iyo deegaan iyo dhaqan marna waxaanu ka hadlaynaa siyaasad deegaanka iyo dhaqanka ummadda gobolada waqooyi degan waa dad walaala oo marna kala tagayn laakiin siyaasad ahaan iyo afkaar ahaan kala duwan kacdoonka suldaan wabar uu hogaanka u hayo dadka ka soo horjeedo maxaad u sheegi karaysaa ama maxaad u bidhaamin karaysaa Faisal waa absolutely waa su'aal fiican waxa weeye suldaan wabar de waa suldaan samaroon wey marka aynu dhaahno suldaanada hadalka uu ka dhawaajiyeyna waxa weeye hadal muhiim ah oo de wixii qof walba caloosha uu ku hayay uu tabanayay moogtahay anu waxaan hubaa inuu moogtahay suldaanku markiisii horeba uu yidhi waxba yeynaynu cabane aynu sideena toos ugu goosano ama sideena aan u samayno laakiin ay odayaashu ka diideen oo la yidhi moogtahay aan ka tashano oo moogtahay aan cabasho ay gudbiyeen cabashadaa ay gudbiyeen laftigeeda odaygu waxaan u malaynaya inaanu raalli ka ahayn oo uu jeclaa inuu isagu gaar ahaan moogtahay ugu dhawaaqo inuu awdal ama gobolka state ay ka go-do Somaliland uu goostay marka kolley ninka yidhaahda wuu khaldan yahay waxa weeye anuu uma arko inuu ninkaas khaldan yahay waayo waxa weeye waa qof wax ka dhiidhiyey wax ka xanaaqay oo de haddaad xanaaqi weydo de waxa dhiig qof dhiig la mehid marka waxa weeye waa qof ka xanaaqay dhibaatada taalla oo aad iyo aad u fara badan waayo odayaashii laftigoodii aan loo soo jawaabin xataa al'aan inkastoo aan aaminsanahay anigu personally axmed ahaan in loo soo jawaabay oo cukusa loo soo faray oo cukusa hadal maalintuu yidhi boor ma joogay wuxuu yidhi annaga barnaamijkan wuu naga horreeyey waa jawaab waxa weeye ay keeneen moogtahay de waxa weeye cukusi waa nin wasiira waa madaxweynaha la shaqeynaya anugu waxaan leeyahay qofkii yidhaahda ninkaas wuu ka baxay horta waxa weeye laba yeenan isku darin annagu suldaan wabar we are supporters waanu caawinaynaa waan ku garab taaganahay ra'yigiisa laakiin waxa weeye waxaan anuu suldaan Saleemaan baan raacsanahay in fact oo suldaan Saleemaan wuxuu yidhi wuxuuna dheer yahay go-iddaa uu go-ay keliya ayuuna dheer yahay marka anigu kolleyba waxaan leenahay waan raacsanahay laakiin wuxuuna dheer yahay go-itaanka nimanka waa in lala xisaabtamo waa inay timaado moogtahay arrin muhiim ah oo moogtahay wada hadal in lagu dhameeyo ayaanu jecelnahay kolley waayahay gabagabadii barnaamijkeena ayaan ku jirnaa dabcan arinta suldaan wabar iyo kacdoonka ka jira gobolada adal dib ayaanu u dhigan doonaa in badan waan ka sheekeyn doonaa odayaasha laftooda arrimo badan oon doonayna inaan caawa kaga hadalno barnaamijkeena qaybta labaad ayaan kaga hadli doonaa waxaa jira shir dhawaan ka dhacay 20kii bishii December deegaanka geb shirkaasi waxaa la yiri waxaa ku shirayo ummadda Gadabursi dabcan shirkaasi waxaa lagu sheegay inuu ahaa shir dhaqameed oo siyaasadda ka caagan 10 qodob ka soo baxayna 10 qodob siyaasad ay salka ku haysay shirkaasi
waxaa kasoo baxay hagardaamooyin loo geystay gadabursiga ku nool Djibouti iyo gadabursiga ku nool Ethiopia sababta loogu geystay waxay tahay gadabursiga ku nool Djibouti xaq iyo xuquuqda ay ku lahaayeen shirkaasi kama aysan helin calankii iyo astaantii reer Djibouti ay lahaayeen meesha lama keenin sidoo kale gadabursiga Ethiopia degan xaq iyo xuquuqda ku lahaayeen calankii iyo astaantoodii lama keenin shirkii waxa la yiri wuxuu ahaa shir dhaqameed waxa la soo waday calankii Somaliland lagu taladana kuma aysan jirin qodobada ka soo baxay waxa ugu miisaan ku cuslaa jiritaanka Somaliland waa isla odayadii shalay ka cabanayay dhibaatada iyo xagardaamada Somaliland u geysatay maan la oran kareenin anagoo doonayna inaan barnaamijkeena soo gunaanno odayaasha iyaga ayaa kor iyo hoosba dhibaatada bulshadan lagu hayo ka mas'uul ah iyagoo eeganayo dantooda gooniga ah iyo tan ay mar walba jecel yihiin ummadan maarta ku xagal daaciyaan mar walbana bulshada u bidhaaminayo inuu xaqoogu qof kale ku maqan yahay iyagoo xaqoogu ku fadhiyo odayaasha qudooda waad mahadsantahay Faysal taasina waa su'aal fiican waa run waxa weeye odayada unba horta gobolada Awdal iyo Salal odayada unba marba dhinac wada marka waxa weeye qalad weyn bay ku tahay anigu kulley Sultan Saleeman waan saragnay odayada kale laftigooda waan saragnay laakiin waxaan raacsanaa Sultan Saleeman oo yiri marka gobolka Awdal wali maanta shirkaas diyaar uma nihin oo ah moogtay dhibaato taala oo waxa weeye Boorama 8 kadib lama baxo oo waxa weeye waan jecelahay waliba inaan tusaalooyin badan aan idka tuso oo aan sida anigu nabadda horta ka shaqeynaa buu yiri Sultan Saleeman kadibna aan moogtay eegno aan shirka dib u dhigno waa sala diiday marka niman iyagu arrimo khaas ah wata gobol waxa weeye shirka anu waxaan oran karaa looma wada dhanay wasaa sheegtay weeyaan oo waxa weeye niman iyagu dantooda watay unba laga kari waayay in shirka dib loo dhigo midda kale siyaasaddu way ku jirtay meesha waxa weeye de mar hadii la yiri nabadda Boorama kama hadli kartaan Sultan War iyo arrimihiisa kama hadli kartaan waa oday suldaana oo ka maqan oo loo u baahan in moogtahay la wada hadlo oo wada hadal lagu soo celiyo maxay ahayd haddaan mar laga hadlaynin lug haya iyo dhibaato maxay ahayd dekadihii waxa weeye shirkaas anagu uma aragno kulley shir muhiima laakiin shir ay odayaashu ama dee aaminayay ay iyagu gaar u ahayd umaan u arkayn laakiin shir samaroon ma ahayn waayahay gabagabadii barnaamijkeena soo gaarnay goordhow waxaad daawan doontaan clips ku salaysan dhibaatada ay ku hayaan ciidanka laga soo diray magaalada Hargeysa iyo nawaaxigeeda ciidankaasoo dhibaato baan ku hayo bulshada ku dhaqan gobolka Awdal gaar ahaan magaalooyinka Qulunjeed Boon iyo Boorama madhow ayaa daawan doontaan clips ku salaysan hooyooyin iyo caruur ka cabanayo hagardaamada iyo dhibaatada iyo baarashada lagu haya habeen iyo maalin waxaanu soo gaarnay qaybteeni barnaamijka ugu dambeysay ee caawin ku soo ka hadlaynay dhibanayaasha Boqoran Mudan Axmed dhalinyarta ayaad ka dhawaajisay dhalinyarada gadabursi ee ku nool daafaha dunida waa dad mutacalimiina aqoon badan oo leh nolosha iyo sida looga dabaalan karayo waayaha adag dhalinyaradaasi waxaad meel walba ay joogaan maanta waxay ka mid yihiin hormuudka ummadda Soomaaliyeed gobolada Soomaaliya guud ahaan waxay ka yihiin macallimiin waxay ka yihiin dhaqaatiir waxay ka yihiin dad hormuud ah dabcan dhulkoodii hooyo ee ay u dhasheenna dhibaatooyin ba'an ayaa ku haysto dhibaatooyinkaas oo koow ay ka tahay cadaalad darro sinaan xumo shaqo la'aan tahriib ba'an oo haysto maxaad u soo jeedinaysaa dhalinyaradaasi aanu sheegnay ee dhulkii ku nool dibaddana ku nool inay ku midoobaan ama ay ku يعني dib ugu soo noqdaan haykalkii iyo sharaftii ay bulshada Soomaaliyeed ku dhaxlaayeen waad mahadsantahay Faysal waa su'aal fiican iyaduna labaan kala qaadaya labada arrimood dhalinyarada anu maadaama aan hadda Boorama ka yimid dhalinyaro badan oo aan la shiray oo aan la sheekaystay way jiraan dhalinyaro aad u firfircoon oo joogta Boorama way jiraan marka waxaan kala saarayaa gudaha iyo dibadda gudaha dhalinyarada Samaroon ee joogta meeshaas aad iyo aad isku duubay waxaan leeyahay sidiina isku duubnaada wixii isku duuban un baa wax qabsan kara anu dhalinyarada aan soo arkayna waa dhalinyaro wax qabsan karta odayaashana aan amar ka qaadaneen odayaashana bedeli karta ayaan oran karaa dhalinyarada halkan waxaan ugu imiday Samaroon dibadda la hadlaya gaar ahaan in fact wixii way kala
وحوي قبيل يوحبا كل حجرة أن ريها صدق دي قرد دي ولي جد لأنه برتل إنه كل سارساري وكل بعبعزيين تاسو أنا نقولي بس satisfy كهين ولا الله يوحنا لها سمر هو one person أمبا لقيمد marka waxaan ka codsanayaa dhalinyarada dibaddu inay isku duubnaadaan oo aanay oranin ree hebel baa baxay ree maxay baa sameeyay ree hebel baa sidana inaanay oran sida dhalinyarada soo isku duuban tahay dhalinyarada boorama soo arkay qolo walba way leedahay qolo walba ay ka kooban tahay ha isku duubnaadaan baan oran lahaa dhalinyarada especially dibadda waxaan leeyahay gobolka Soomaaliland ugu nabad jecel baan ahayd ee ugu nabadsan maantana waxaan noqonay gobolka ugu colaadsan ee maqribka la soo baxayn sidii gobolada ugu shisheeya ee Soomaaliland saddex nin ayaan tala dilaa ugu yarayd maantana boorma sidii ka dhacday siiraaya waxaan leenahay inaad naga qabsatid ciidankaaga oo digniin u siisid hadii kale ciyaal iyo ciroolaba waa loo kacayaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh xukuumadda Soomaaliland way maadsantahay marka hore waxaan saleenahay ciidanka Axmed Siiraayo oo keenay gobolka Awdal caasimadda gobolka Awdal ee magaalada Boorama hadday leedahay ciidanka hadii uu leeyahay ammaan ku sugaya ammaanka gobolka oo caasimadda gobolka Awdal ee magaalada Boorama Ilaahay baa sugay ma sugan ciidan ma sugan gobolka Awdal ma sugan Ilaahay baa sugay ciidanka Axmed oo keenay gobolka Awdal carqaladu ma ku soo kordhiyay midii ma lagu bilaabay shacab xumaaday ciidan ma suga ammaanka ma suga shacab xumaaday xukuumaddu ma sugi karto ma xarasaas baa lagu sugaa iyo ciidan iyo tiknikiyo hub la soo kordhi oo la soo wado ma suga cadaalad baa lagu sugaa waxa la yiri calool carab bogsiyo ya aduu leeyahay macaarad buu noqday Axmed Siiraayo gobolka Awdal calool carab bogsiyo waxa lagu galiya khatar sideed nin bay haambuuri waxay siteen buuri direys sideed ninba direys bay siteen buuri yahay waxay ku dhacday waxaas ciidanku ammaanka sugan meela telefoonada qaataan baa loo keen war wax dhici kara meelahaas wax la iska assalaamu alaykum horta dawladda waan salaamayaa ee waxa dhacay dawladda nabadgelyada ee noo keentay waxa noo soo raacay wax badan oo dhibaato tuug baa noo soo raacday dhibaato badan oo boorama ka dhicin baa nagu dhacday dhiig la daadiyo hablo la laayo rag la midiyeeyo inta midna ma arag markaas dhibta waxa waxay noo soo raacdeen nabadgelyo la keenaya intayadii hore iyo dalfudayskii hore hala noo soo celiyo dawladana hala naga dulqaado dhibaato badan baa noogu wacantay hooya maandaradu waxay naga bilowday imika mudooyin waxaan xaraman aaminan buu ahaa wadankeenu imika hadda inta ciidamada Soomaaliland ay nagu soo kordhisay ay amaandaradu inoo timid madaxa la noo duubtaa midiyaa dadka la gaadaya moobilada la dafaya sidii wixii amal ka jiray Hargeysa ayaa Boorama ka bilaabmay waxaana waxa nooga masuula xukuumadda Soomaaliland ayaa arrimaha nooga masuula oo dhibta nagu haya wax kale oo dhibaato nagu kordhay ma jirto awal anaga wadankaygu aamin buu ahaa banaanka la iska seexanayay dhibaato mayna jirin wax moobala la iska qaaday ma jirin wax mudiyo la isku dhifanayna ma jirin hadda madaxa la noo duubanaya wax la nagu soo kordhiyay weeyaan waxaana waxa nooga masuula dawladda Soomaaliland ee ciidamada nagu soo kordhisay ayaa nooga masuula arrimaha noocaaya marka waxaan jecelahay in la naga ilaaliyo dhibaatada la nagu hayo oo la naga dulqaado ciidamada la nagu soo kordhiyay ee dhibta caynkaas noogu wacan ee dagaalka hoos ahaaneed nagu wada waxaan jecelahay in la naga qaado ciidamada haddii aanu nahay dad muwaadiniin oo Soomaaliland u dhashay haddaanu nahay calanka Soomaaliland udubkii dadkii haya haddii aanu nahay waxaanu jecelahay in dhibaatada Soomaaliland ay nagu soo kordhisay hay naga dulqaado iyo midiyaha habeenkii hablaha lala galayo ee hablihii midida lagu wada tagay dhakhaatiirta wada yaalaan dhibta inta laagna waxa nooga masuula xukuumadda Soomaaliland intaas kaga baxay bismillahir rahmaanir rahiim anu كابتن عبد الرحمن عبد الله إن يروح الربعين كارلو dhibaatada ka taagan gobolada galbeedka Soomaaliland taas sabab u tahay xukuumadda Soomaaliland waxaan ugu baaqayaa xukuumadda Soomaaliland in si degdeg ah xal uga gaadho dhibaatada ka taagan gobolada galbeedka Soomaaliland anaga muwaadiniinta Soomaaliland marnaba ma ogolna mudarro inay ka dhacdo wadankeeda ama bulshadeeda lagu bilaqasta waxaana jira
waxaana nagu baaqanaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya siyaasadda uu ka maagan yahay gobolada galbeedka Soomaaliland inuu dib uga laabto si degdegana xal looga gaadho waayo waxaanu nahay dadkii dhidibada taagan Soomaaliland naf iyo maalba u soo huray marnaba ma rabnayna si amni darraadna dadkeega loo gumaysto markaa gumaysigaana naga dul qaado haddii daladaan in meesha lagu kala tagana si wanaagsan loo kala tago haddii kalena wanaagii walaadnimada iyo midnimada la ilaaliyaan si degdegana ciidamadana nooga dul qaado ciidanka la raraan leeyahay ciidanka halkiisa lagu celiyo ka bacdi dalkana amaankiisa hala sugo Soomaaliland gobolka Awdal wuxuu u baahan yahay sideeda loogu furiyo كورن هولان هماكي soo baxo midiyaha la iskilinayo dadka qalad weeyaan waxa weeyaan hadii uu ciidanku amaanka sugayo waxa habeenkii dhibaato imanaya inuu ogaado uu dalka maxay hayday ee wadanka ama se magaalada wixii dhibaato ka imanaya markasta uu ogaado uu habeenkii roonda sameeyo oo wixii midi la gelinayo wixii maxay hayday suuqa wareegaya uu maxay hayday ka waxa weeyaan inuu ciidanku hadii uu amaan doonayo inuu dalka sugo weeyaan amaankiisa inuu maxay hayday dadka midiyaha dadka gelinaya habeenkii ilaaliyo oo wixii meelaha rag iyo dumar dib sameynayaba uu qabto weeyaan hadii kale inuu wadanka iskaga baxo weeyaan ya boorama xasoo badatay amni darro aad u badan oo awalna la aqoon marka waxaan leenahay inaa laga hadlo daarimahan sababtoo ah bariyo hore midiyo wax la geliyay wax la istigaatoona ma jirtiin 12 habeenimo amaan socon jirnay inkana 8 habeenimo cidnimo bixi karto marka waxaan leenahay inay dawladda iyo shacabka ka hadlaan arrimahan anigu waxaan isleeyahay malaha waxba noogu wacan ciidamadan dul dhigay marka waxaan leenahay inaan indhaha la iska qabanay si fiican looga hadlo hana la naga kor qaado culayskana saaran si loo ogaado shacabka inay tahay dawladda marka waxaan leenahay madaxweyne iyo dhammaan muslimka ummadda Soomaaliland waxaan sheegaynaa in ay si sharaf leh nooga dul qaadaan dhibaatada naga haysata lana ogaado waxaan rag iyo dumarka balaynaya waayahay halka waxay noogu eg caawa barnaamijkii aanu magac darnay dhibanayaasha boqoran ama dhibanaha boqoran oo aynu ku qaada dhigaynay dhibaatooyinka iyo diihaalka iyo hagardaamada ka taagan carreeda gaar ahaan dhulka reer Adal waxaana barnaamijkan caawan ku wareysanaynay mudane Axmed Qalinle oo kuma dheer Axmed Jango barnaamijku waxa idin daadaynay anigoo Faysal Cabdullaahi Xaji Cabdi xagga farsamada waxa inaga caawiyay Daawud Caamir inta aan ku kulmi doono barnaamij kan lamid ah ama kiisa kale waxaan idin leenahay sidaa iyo nabadgelyo